kulan waxaan daawada meel walba aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaalka leh waaye films oo hadana kale kusoo gudbiya muuqaalo la xiriira arrimaha Bollywoodka. muuqaalkana maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xidigada Bollywoodka ku yimid isqaraabaysi ama qof jeclaysi hadana guul gaare ama aqoonsi hele oo iskugu jira atoorayaal ama atriishooyin kuwaasoo filmadooda had iyo jeer guuleysta waxaana baadgoob ugu jira film sameeyayaal caan ah. qof isqaraabaysi ayaa in la boonbooni waxaa keentay in Bollywoodka uusan fursad u helin inuu ka shaqeysto qof banaanka ka ah qoys awood ku leh Bollywoodka. waxaa arintaasi kala hor banaanka keentay atirshada xilli walba muranka dhexda kaga gasha ee Kangana Ranaut. sidoo kalena waxaa arintan cirka ay gashay markii uu dhintay Sushant Singh Rajput. aan u dhaadhacan warbixintana maanta aan kaga hadlayno xidigada isqaraabaysiga ku yimid Bollywoodka hadana guusha gaaray. aan ku horeysin warbixintan liiska koowaad Tiger Shroff, wiilka J.K. Shroff. Tiger Shroff waa mid dheeshi si fiican u yaqaan laakiin wuu awoodi waayo in xirfadiisa jiliinka uu nagu tuso filimada laga soo bilaabo Hero Banti ilaa iyo Bagi 3 laakiin wuxuu shirkadani ku joogaa magaca aabihiisa. liiska labaad waa Janhvi Kapoor. gabadha uu dhalay film sameeyaha Bonnie Kapoor ayaa ku soo caan baxday filmka Dhadak oo ah mid guuleystay wuxuuna soo xareeyay 79.39 karoor. liiska saddexaad waa Alia Bhatt. gabadha uu dhalay film sameeyaha Mahesh Bhatt. Alia Bhatt waxaa soo caan bixiyay Karan Johar oo uu sameeyay Student of the Year waxaana ku maamushay aragtidiisa xirfadeeda jiliinka sare. qofka afraad liiskana waa Varun Dhawan. waa wiilka uu dhalay film sameeyaha David Dhawan waxaana shakhsi kale oo uu soo caan bixiyay Karan Johar kuna soo caan bixiyay filmka Student of the Year. wuu cadeeyay jiliinkiisa wuxuuna noqday mid dega qalbiyada taageerayaashiisa. liiskan qofka shanaad waa Hrithik Roshan. wiilka film sameeyaha Rakesh Roshan wuxuu ku soo caan baxay Kahona Pyar Hai hadana waa mid ka mid ah xidigada ugu caansan Bollywoodka. liiska lixaad waa Ranbir Kapoor. waa wiilka uu dhalay Rishi Kapoor wuxuuna ku soo caan baxay filmka Sawariya. waa mid sameeyay filmo guuleysta iyo mid guuldareystaba saas ay tahana waa aktarka ugu fiican Bollywoodka. liiska toddobaad waa Sharada Kapoor. waa gabadha uu dhalay Shakti Kapoor waxaana ku soo caan baxday filmka Teen Party. waa jilaa fiican kuna darso waa heesaa waxaana filmkeeda Aashiqiitu uu noqday midka ugu guulaha weyn gaaray filmaanteeda. liiskan qofka sideed ku jira waa Shahid Kapoor. waa wiilka uu dhalay Pankaj Kapoor wuxuuna ku soo caan baxay filmkii Ishq Fishqi. intaas kadib wuxuu noqday mid aan la qaban karin oo uu guulo la gaaray Bollywoodka. intaan ku soo xireynaa muuqaalkeena kaga hadlaynaa xidigada ku yimid isqaraabaysi Bollywoodka hadana guul gaaray.